iga sheekay baa ilaahay gulayna aadama bal ka waran haddii ilaahay maqalka uu kaa qaado oo araggana uu kaa qaado oo qalbigaagana ilaahay uu kaa qufulu kaa daboolo la waxa bini aadamku waxay wax ku kala gartaan waa qalbiga weeyaan waxay wax ku arkaan waa aragga weeyaan waa basarka weeyaan waxay wax ku maqlaan waa dhegta maqalkeeda weeyaan intaasiba waa nicmadaha ilaahay waa weyn haddii intaba ilaahay uu kaa qaado kaala noqdo ayaa ku siin karo aan isaga ahayn balsheeg ma jirto weligii ma maqasheen dowladda bidix indha samaysay oo araggii samaysay ma jirto dowlad maqalka samaynaysa lama sheegin dowlad dadka qalbiga u samaynaysa lama sheegin waxaa laga yaabaa xanuunada bini aadamka dunuubtoodu ay keento inay cilaajiyaan waa suuragal daawaday ku daweynayaanna iyaku lama iimana ilaahay baa soo dejiyey maa anzala allahu daa'an ilaa wa anzala lahu dawaa xanuun ilaahay arlada uma soo dhaadhicin buu rasuulku yidhi ilaa daawadiisina ilaahay waa soo dhaadhiciyay daawaye buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam daawo laga yaabaa inay ku siiyaan ishaa ku xanuunaysa waa laga yaabaa inay cilaashkeega ku helaan laakiin aragga ma soo celin karaan isha unbay daweyn karaan laakiin basarkan wax lagu arkayo waa basar xagga ilaahay ka yimaada nuurka wax lagu arkaya xagga ilaahay buu ka yimaadaa haddii ilaahay bini aadamka nuurka uu ka qaado oo dhegtana ilaahay maqalka uu ka qaado oo qalbigana qofka bini aadamka ilaahay uu ka rogo oo qofku u noqdo waad aragteena qofka waasha markiiba waa la qabtaayo waa la xidhxidhaa soomaalida waada tiraada ninkii waalama turkiiba u fayo haddaad aragta nin waalama wadada socda maxaa la odhan war ninkana tor miyuu lahayn baa la odhan dadkiisu may qabsadaan ay xidhaan maxaa ka maqan markaa qofkaas lugihii uu leeyahay maqalkii uu leeyahay araggii uu leeyahay laakiin caqligii baa ilaahay jalla wacala uu ka qaaday garaadkii baa ilaahay ka qaaday culamada qaar waxay idhahdaan qalbiga iyo caqliga meel bay ku sheegaan mid keliya inuu yahay halka culamada qaarna qalbiga ay gooni u sheegaan ay yidhahdaan waa aalad gooni oo ilaahay waa xubin gooni oo bini aadamka ku dhex abuuran caqliguna waa xubin gooniya laakiin qur-aanka ilaahay waa kii ku sheegay fii suurati alambiyaa lahum quluubun laa yacqiluuna biha baa ilaahay quluub way leeyihiin laakiin waa quluub aysan wax ku qabanayn baa ilaahay yidhi waxba kuma xidhayaan aaladaas ilaahay baa ku siiyey aba ku kala garanaysa hadduu ilaahay qalbiga kaa qaada ka waran caqliga buu kaala tago yaa ku siin hadalkii waa lamid idan aaladaha ilaahay jidhkeenna uu ku abuuray ma wuxuu inoo siiyey inaan ikhtiyaarkeenna u isticmaalno mise inaan shareecadda u isticmaalno sida shareecaddu ay nafartay haddaad tidhaahdeen maqalku anuu igu yaallaayo xor baan u ahay oo waxaan doonaa ku dhagaysan haddaad tidhaahdeen aragga anuu igu yaallaayo xor baan u ahay oo waxaan doonaa ku daawan haddaad tidhahda carabku anuu igu yaallaayo waxaan doona ayaan ku sheegi oo xor baan u ahay haddaad tidhahda waktiga aniga iska leh oo meeshaan doona ayaan dhegi oo xor baan u ahay haddaad tidhaahdeen insaaniyaddii hoos baad uga dhacdo waxaad maraysaa xayawaaniyaddii baad sii maraysaayo ogow limaada lianna cidda ilaahay adduunka dusheeda uu axraam uu ka dhigay waa xayawaanka xayawaanku shahawaadkooda xor bay u yihiin iyagu meeshay doonaan bay xaajadooda ku gutaan meeshay doonaan bay iska maraan meeshay doonaan bay iska seexdaan waxay arkaan bay iska qaataan leanna waa xayawaan mukallafiin maaha iyagu iyaga shareecaddu uma soo degin iyagu waxay leeyihiin amar la yidhahdo magaciisa la yidhahdo taskhiiri bay leeyihiin amarka tashriiciga innakaa laynoo soo dejiyey amarka takwiiniga taskhiirigana xayawaanka ilaahay loogu talagalay amarkii xayawaanka loogu talagalay ayagu way qaateen oo waa kuwa adiga kuugu adeegaya geeli waa ka adiga kuu adeegaya lo'dii waa ta adiga kuu adeegaysa fardihii waa kuwa adiga kuu adeegaya dameerkii waa ka adiga kuu adeegaya bisadii waa ta adiga kuu adeegaysa aygii waa ka adiga kuu adeegaya xayawaanka intii ilaahay uu sakhiray bini aadamka waad aragteenoo bini aadamka ayay u adeegayaan waayo iyaka amarka ku socda waa takwiini weeyaan waa taskhiir
إلهي بإنك إنه سخري لكن بني آدم كأمرك يقلبون تلقى إني الراعان وتشريعي ويانو وشريعة الإسلام كإلهي بني آدم كإلهي مسود الجيه شريعتنا ومحي ومعروف يا منكر وأمر يا النهي وياه وبشارة يا ماركتان إنذار وياه وحويان شريعته وحوا هناك الراع بشريعته الولادة حي وحسوا منكر كهر بشريعته الولادة حي وحن واجب لك على بشريعته الولادة حي وحنا ماركتان ومحرمات كدروا أي شريعته الولادة حي وحن وهناك بيولادة حي وحنا وح أديك بقول ونقول سنة استجبتك بشريعته الولادة حي شريعته وحنا ويكون بشارين إساء وحنا شريعته ويكاجد إساء وحنا ويكفر إساء وحنا ويكارب إساء وحي شريعته أي كفرتي هذا لا إيمان ويدو ووحي شريعته أي كاربتين كل حجرت أفر لما تك الساعة إنسان يدي هاس بعد وقصود عدو أو حال مريسا حيوان يدي بتصير مريسا يقول شريعته حين لا هي وناك بينيك أنت دين الإسلام كي يقاتل ولا ليا بين هذا كعقل جوج إلى هيكم الدين عقلك كلي بين آدم كلها هيكون قراني مايان لذلك علم بإلهي عقلك أصول رعي علم العلم والعقل معا علمك هو وتنزيلك ومنزلك وكتبت السماوية عقل كلي بين آدم قال له مدين قال له عقلي ويليه لكن عقلك إلهي مركي كو قراني وايين وحي نقدين وادو جيدان وادر كيسا إلهينا عز وجل واكي لها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عقلك قالوا ما أنت أي شيئا أيام يمقل حدي أي ما أنت الشيكتان مالك قيامها وحاسونا وإنكري دونانا وحي إليه أدونك أنت إلا تشوقي هدو عقلك شقين لها وعقلك يقول صدى الصحة وشقين لها مقلك يقول صدى الصحة هدو شقين لها نار تسعير إهل كيد من نقنن بيولن دونان مالك قيامها لذلك ضد المسلمين إن مقلك وحنو استعمالان إن عربك وحنو استعمالان إن أرق وحنو استعمالان إن دقالوه ميل حنو استعمالان إن أرقوه ميل حنو استعمالان وحاكينا يا إلهي نعمة السيبين قرن بك دقنتها يا وديسا وهي النبي عليه الصلاة والسلام وحيري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كي إلهي رميسنو آخر إني جرتنا كو حساب تما يوم النبي يري والخير وكو هذا لما يسكى أمس النبي عليه الصلاة والسلام هذا أركت وحي كسور محبة أي داونا يا هذا أركت وحي كسور محبة أي ما ركتاني وحكش يا هذا أركت وحي مسكح له كسور عبا أي كور بحنا يا وأن وحبه في سنين التبين أن كل شقين هذا أركته قاس إلهي نكو حساب تما مايان آخر إني جرتنا كو حساب تما مايان بكذا labadaas ninka garanaya buu nabigu leeyahay sifada lagu yaqaan waa maxay ama khayr buu ku hadlaya ama uska amusaya buu nabigu alayhi salatu wasalaam nabiga waa la weydiyo lagu yiri man najatu nabi allah a'maasha lagu nabad galo bal noo sheeg markaa buu nabigu ku yiri alayhi salatu wasalaam a'maasha lagu nabad galo ayaa nabiga la weydiiyay man najatu amalka aakhira lagu nabad galaya bal noo sheeg arabkiisii buu nabigu qabto wuxuu ku yiri عربكاga qababu nabigu alayhi salatu wasalaam markaas nabi saxaabiga nabi allah ii biiri markaa nabigu ku yiri alayhi salatu wasalaam dambiga adiga ka dhacayna la ooy dadka kale lagu ma diran adiga dambi wixii ka dhacay is xisaabiyo dunubtii hore aad u gashay halka kaliya dood fadhiisata kooy inuu ilaahay dambiga ka masaxo ka dhaafo aqalkaaguna ha kugu filaado ha ku daaqo rasuulku yiri كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وفق الذنب وحا أغفلا وحا مغلبة سنة الكوسي شكشير وحا مغلبة سأقول أنا أفير سن لأنه مجتمع كل احتوار
آفة اللسان عربك وآفه مرنا عربك خير بو سمايا ومكينة ومرنا خير بو صوتورا ومركا الأذكار أدو استعماش خير بعض استعماشي مركا القرآن آخر اسكو استعماله خير بعض استعماشي مركا الإصلاح ذات البين أدو استعماله خير بعض استعماشي مركا دعوة يا أمر بالمعروف أدو استعماله خير بعض أديك ستي مركا مدة علمك أتكبر خير بعض أديك ستي مركا أدتك حمانا يسو أما دتك أدعايا يسو أما دتك أتكبر أبورنا يسو أما وحي أد مقشب أمد أدو قد بين السنة عرب جوح صوت ريا النار بصوت ريا معاصي بصوت ريا الذنوب وإن العبد لا يتكلم أي النبي عليه الصلاة والسلام أدونكو كلمة أيوكو هذا رسول كلمة أو إلهي عز وجل أوران لك يحي أو إلهي أوجعل يحي لأن إلهي عز وجل أوجد وانا إلهي رالي وكذا نغنى أيوه وإن العبد بنبي أدونكو كلمة وحكو هذا يا وسن مركو هرب وسن أميل دين ما خير بيهايد ما شر بيهايد ما أمد اسكو كانسا ما أمد كلا فوقينسا أمم ميل دين لأن كلمة دي بو اسكت توري مال تضبعت سنة الله سعودون نار جهنم مركي جلتو إلا أكبو كلمة وفير سنو اسكت توري أيو نار جهنم وقود وانا يا أبو رسول عليه الصلاة والسلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا الأفكار كسوة بحمايو لبدا ملك بقري سبا ليلوك مركا بقلك إلا الدل شوغان ومن رحمته نحريست إلهي وحا كمذا بان ليلي خير مركا عرب كاغا وكسو بحنا مركي بحسنا اللقو قريا حسنا دينا تومان باللقو قارسينيا مركا دنبي وكاسو دعانا ملقي الشركة قرأيي أيا ملقا كلا أيا كورنيا كجوب بالله إلهي استغفار ويديسي وأدون كان إلهي وصو نقون لح ساعة بالله كاديا مالين بركت بالله كاديا بل أدون كاسينو دنبي كسو نقون كتوبت كير هدو دنبي إنو كوها اللي وسن قرواقسن وأونا كسو نقون استغفار وأن إلهي ويديسن هل دنبي بالله قرى يا أبو نبي وشيق عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أيها رجري وحن لا يابي بوري والله يابي أدون هلاك سمايا ووحي وكبت بهذا ينا مارك تاني أكتي ستا الله مركز قال يا أمير المؤمنين عملك اللي كبت بهذا بلنوشك مركز بوري واستغفار توين واستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسبه النبي عليه الصلاة والسلام قفك استغفارت اللازمة استغفارت بدي أبو نبي عليه الصلاة والسلام همك كستول للسود درسبو نبي يري فرج زقدقا إلهي وكنا عريري كستول ولا كل منا مالو كبحبا إلهي ويلا أرزاقنا مالو كفلين بلغا صيام رسول يري طوبى بول علي بن أبي طالب والليباني كل ليباني بلغو يري نيكا مالك قيامها صحيفة ديسا نيكا مالك قيامها كتاب كيس استغفار بدن دش كبل هلا والله كاس قول لي بني ابن عمر بن الخطاب عمر ما قال إنه لها ما جعلها قالت عرب كان مرنا عذاب كود وين يا مرنا جنة حق يدو كود وين يا كلمتان خفيفتان على اللسان لبك المضاد النبي وشيقي عليه الصلاة والسلام وعرب قدوش يدو كفضو ميزانك قيامها نكون علص النبي إله الرحمن كان أكتي سلوش عليها والله بديه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذكره وعمل له استعمال عربك بقول جرب الأوران كريسا كن جرب الأوران كريسا قال لي نهارات سماي كريسا قال لي دبات سماي كريسا حتى طهار الله ما شرطية ذكره كلية بيت الميجا مركات قال لي سدوم لقى ربعين أنا حسوسا أنت كلا أردن ماشى دون تجوم ماشى دون تمر حالة دون تكجر وعبادة بالنا مالنا عن لو شردن طهارنا عن لو شردن وقتنا عن لو شردن إلا مركات الحمام كأت قال لي سد مويانه أنت كلا أردن وهذا استعمالك رتاب
intaad wixii kugu soo dhacaba aad ummadda u gudbinaysid adoonan ka fiirsanaysan waxani ma sharba ma khayrba ma sharba ma khayrba ma sharba adoonan u fuursin intaad wax walba ummadda aad u sheegaysid maxaa kuu diidan inaad ummadda khayrka aad u sheegto waliba zamankan maanta inta aalaadkan tawaasul ijtimaacigu uu soo baxay waxaan baraha bulshada loo yaqaano ay soo baxeen waxaad ku hadasho dhanba uu duuban yahay bal ka warrama hadduu wararkaa la duubayo hadduu shar kuu galo ka warram xagga ilaahayna uu kuu galay xaggii bini aadamkana uu kuu galay xagga ilaahay uu kuu galayo waa kii nebigu lahaa albiru laa yablaa waddambu laa yunsaa waddayaanu laa yamuut icmal maa shi'ta kamaa tadiinu tudaan albiru laa yablaa khayrka iyo samafalka aad samaysid kaama baaliyooba buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam dembiga aad samaysana lama ilooba buu rasuulku yidhi ilaahayna waa ma dhinto xayun daa'im weeyaan icmal maa shi'ta kamaa tadiinu tudaan in aadanow sidaad doonto u dhaqan sidaad adigu ilaahay ula dhaqanta adna ilaahay adigana kula dhaqmi doonaa dembi lama iloobo waa la qorayaa markiiba ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب مالك قيامها كتاب يقفل بعمل قيس الله قري أي هرتيس الله صوب بقي دونا ووجدوا ما عملوا حاضرا وفترى المجرمين كوي مجرمين الذنب قبلنا أدونك دوشي ذا إلهي كو عسين جري مركي أركان كتابك وحا كو قرن وعبصوني يعني مركي بعبصبها كو بلا ما يسيك وايو أدونك دوشي دي بعبصوني وايان ويمرغوني يعني لماذا أدونك دوشي دي بكم مرغوني وايان آخرة ويعبصوني يعني إلهي بكعب سني وايين قيامها أي كعب سني وايين حسابت آخره كل حسابتني وايين هل كاسي مرقا يكعب صدود أي كوها ليلي دونتا ويقولون مركا كتابك ونول بكتابك يسوء كالفرو محو رندونا مركا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وحاولي هي ومحاوى هذا الكتاب كم بولي هي وحبابك ما بتقين بهبا يراته دنبي يري دنبي وين منك كما تقل ابن عباس رضي الله عنهما وحيري وقصل كويان مركا دول عدين سنة ولا قرية مركا أفكك لقاضي سنة متكبرين تا أدو قصلي سنة قصل كي لبدي ولا قرية يو كتاب قاس وحبك تقي مايو ووجدوا ما عملوا حاضرا وحي أدوك دوشي دا أي كسو قبتين وحاضر أي هرتو دا كلا كل مدونان ولا يظلم ربك أحدا يا محمد باللي هاي ربك أحدنا ما ظلمنا يا إلهي وعادل عدلك دم حق سوكي ماذا حق إلهينا كتابك وحياتك هذا شيء وكوكو قرن يهي حق بني آدم كان الزمن كان ما أنت وحدك هذا سودا والله الضوبي وقو قال سودين هذا الدويك هذا الشيء ويدوبان تهي هذا قبيلتك هذا الشيء ويدوبان تهي هذا سياستك هذا الشيء ويدوبان تهي هذا بينك هذا الشيء ويدوبان تهي هذا ضمد في الند أدحدك توي دوبان تهي هذا ضمد وانا أقولك توي دوبان تهي ولما بني آدم وعدك الشيء إنه علمك علماء من عبرت أي كشيء يا التواصل الاجتماعي قال لك دوبيو نيد يوقفتين كوني قد دوبي نيد أنو إيري مقرن أيام لكن إلهي بأوغانيك نيد يدوحانو إيري أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه إلهي بأي الحديث القدسي إن عمل أنيق عدك لليلو ذاتيو وكغني سنة وكدقتون هاي بأي إلهي نك عمل قبتي عمل صالح قبتي عمل كاو قبنا ين عدك ليلو ذاتيي مالك قيامها شركي وعمل كاقلي عمل قيس ونسكت دافا بأي إلهي عدو إيش شركي إلي سكن نسكت دافا بأي إلهي ورلاهي وقلب الجري واحد أتشري هذا الكا ما خير بعد ولا جدي ما إلهي درتي بعد ولا جدي ما بني آدم بعد استوسيسي ترك العمل من أجل الناس الرياء ترك العمل من أجل الناس الرياء
والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك منهما. فضيل بن عياد بأورنجري عمل كون أكسن دينك أو ضد يسدتك أي أركايا واستسلموا عمل كون أكسن أو قبته ضدك هيغو أركانا وأورنجري والشركي إخلاص من الله ماذا صور يا بودي وركاد دينك كهلينو أيان والله ثم والله أن عبسنا آخرين لنقو قبته أو محكمة إلهي نقبتوين ترادو هذا الكامر كاتكو هالليسي ما أني قاد إلى جيدي مسدد قاد استوسيسي محادو ملايين إنسان نكا فقارين تو صوفر استي وحي مجتمع وكدم لها أما وحي أمدي أي كوها الأقسام لهاي نكا سوشيال ميديا قليلة كورما يسكر. إمام بخاري رحمه الله أي أرجو أن ألقى الله وحن إلهي كرجينا يا إن لكل ممالك قيامها أنا اللي يقب سنين قف مسلم أنا حنتي أنا حمل ولا شيء سيود مكسيكي وأصعب شيء للمحدثة وعلم الحديث كي ولبنا صحيح سي ضعيف كي سي كلا ساريا إنه نن وحك الشيخ وحك الشيخ ويا أما الراوي وحك الشيخ ويا وشقاء أدق ويا سدو أرنكاس كو إلاليي لكن تقوى ديس إيمان كيسا يا عبسد إلهي هلكو كتاقنا وحو إمام كاس يري وعن رجب كقبا ورجينا يا مالك قيامها إلهينا لكلمو أنا قف مسلم أنا صوحة من يدوك تكون ولا حنتنا ومحي ما الغيبة بان النبي قال عليه الصلاة والسلام غيبة وحويان ذكر أخاك بما يكره بان النبي ولا الكاه وحا لبسنا يو وتكون شيك تدبو النبي يري وغيبة ويان وحول مركز الصحابة يراد النبي الله والصفة عن كل شيء عبتا عن كل شيء هدولي هينا هداد السجوا كم مغلين أفقداتي سكتري والحمتي بالنبي يري وحول سلاين هداد كل شيء تينا وتكون بين أبورتي ورسولك يري صحابي بالنبي يمد عليه الصلاة والسلام مركز يا رسول الله أوصني إلى دردار بوكي مرقام النبي كويري لا تصوبن أحد نها عاين بوكي أحد حتى بني آدم لم أورن منها عاين صحابي سكا كشاكين وحويري دردارا كان مالنتو النبي يسي عليه الصلاة والسلام دبدت وبني آدم معاين نيف قيلة معاين نيف أريا معاين واسكدا بني آدم اسكدا حيوان كما يقول نبض قليب وقليا بني آدم كي هاي أبو رهدي كان نبض قليب ويا كورا زمن كان ما أنت أن جوجنو كنت حل أذك بنقصو هجاجن حل أذك وأذكتها يقفك مؤمن كإيمان كلي سدو دين دي سكوبة بعد سدو وأذكتها إيمانت تكون فتنة بود حذيفة بن اليمان الله رأى لك النقضي أيايري فتنة بإيمان دون تآخر الزمان كا تعرج فيها عقول الرجال بود عقلك الرجل كوري دون تابود حتى لا تكاد ترى عاقلا واحد أركي واحد بعيد دون تأين هلي ويدد بع قف عقل له أمضوا أي دبجوك ستو تواصل الاجتماعي واحد برها بالشدة أنا لانو بل قل مدتك عقل قاله علم قاله الله كعبس قاله دين دتك هلك أصول رحمري أيا أنت بدل لدقي سايو الله داودا بس دتك معاصدة كشغية والعلماء دي هي صدق وين أنت بدل لدقي استقبال كأنك داودا كويل لدقي استقبال شيء كويل لا تاجر رابع كله تا سياسي يا عالم كرباني كيف هم ضمان تدقي استقبال حرتا علماء ما حيتر إلا أوران مايو لكن سياسي الرهب المحوري بلليه هاي مانت سياسي زمن كان سياسيين زمن كان عالم كجوكتا نبي نوح وسيشاقي
أفر يتوان قرن كهر النبي سيشة أمة ما إيمان دون تزمن كان أفر يتوان قرن كهر في النبأ إيمان دون تبوري حذيفة بن اليمان حذيفة وأيوها متقانان وحوها نكي يري ذاتك النبي خير كي ويدين جرين أنا قلنا شركة ويدين جرين بوري دبعت هذا هي في الندى صوصعتا أي نبي محمد ويدين جرين بوري عليه الصلاة والسلام أنا كعب سنة إنه في الندى سوحيق سوق قادان ولما في الندى وكعب سنة ماها في الند قبيل ماهي في الند سياسة ماهي في الند مال ماهي في الند معصية كسليس ماهي فتنة الدين برقاسك بغيين فتنة الدين ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها فتن باس وسعتبو نبي لي فتن بادروا بالأعمال عملك خيرك أسي دقدقة صلاة دقدقة إيمانك دقدقة مساجد دقدقة خيرك دقدقة أنا قداش شيء ذو النبي يري فتن بايمن دوتا فتن محل إرادة ووحلي وحي إلهي وحي وكو أبوري كاوي عيني سئ كامشغول سودن وفتنة بالإرادة هواكو في النض ويسوق ليا لعقتو في النض ويسوق ليسا مصبكو في النض ويسوق ليا تجارته في النض ويسوق ليسا دينتا إنبا في النض سوق ليسا وحلي وحي إلهي جعيلك سي جعيلك نبي محمد إلهي يا رسولك نبينا ذو الرعضو وحلي وحي كان لحين يوردن وحلي هذا مقعيسة فتنة بالي هذا ريبن إسرائيل في الندو ذا دمر بنبي كل شيء أمة النبي محمدنا في الندو ذا وحال لقول شيء حولها لقول شيء بركاب النبي محمد إن ليه هي في الندبة صوص عتاه عملك أودك دقة ولي بس ده هبينك ساعد بساعد كسيد دم بيسا سيدك أكل مقدي بدن تهي أي في الندنا زمن بالزمن كقدم بيوسي بدني دونتا مركز النبي يقول سيف يوحوش شيء قال لي كهر قفك وحوا بريسنا يا إسقى مؤمن أو إيمان لي وحوا قلب سنة يا إسقى مؤمن أبو إسقى قالوا قلب سنة رسول الله قال لي كهر محوي لو بريستي مؤمن أعماشي ذاتك مسلمين تلقوا يقاني مؤمنين تلقوا مرخات كعايي أيا قال لي كهر لقوا أركيا قال لي كدمنا وحا لقوا أركيا أعماش ذاتك أيكو قالوا ما بلقوا أركيا سوى كل حجرة وحو قلبيسان إساقوا مؤمنا وحو بريسان بنبي قول إساقوا قالا يبيع دينه بعرض من الدنيا دينتي سيدنا يدوحوا دافسنا يا دافروا الديو دينتي إسلامكم معي يقول هذا بينها شيقين براها بلشد هداد بين كف دي سكور مصاحبة وما حادوا في ذين يساب بين تامين لقوا يريو وعلي رزقي بهالك أنا لقى لي واحد حلال كويدي سيد حرام وقدوني مركا ما دي لها كبقين كي نولا بيدي ليان كي عافمات خبينا وبكابي لنا اخترضوا جيفا معلومة دوت أنا قاعد بقول لهم سووا دعائي دعائي ما كفاية هذا وانا بس كعافمات قوة مقالة سكت حورية يعني هم بالله سوها الله سكور الشيخ وردمر وكعافمات وينهم بقول هذا وحي الله الشيخ بهداد قادوت في سوى دمبي لكن محان نقولني وحقفك حمانتك قبنا وإيمانك والله كعبس قاريك محان قبته فريم باقبته بريك هذا قاريك بريك قوستك ورمه ما يقول بقى وقلي حاد علي ما أنت أضو مسلمة أضو مسلم شيئا إناد بين شيكته ما حيكون على أضو مسلمة إناد معاسي كود عضو ما حيكون على أضو مسلمة إن صلاة كود عفته ما حيكون على أضو مسلمة إناد مسلم حمته ما حيكون على أضو قف مسلمة إناد قبيلتك شقيس ما كان قاريك وابلا بريك بالك السوق قال يا مركب دم بريكي بقى كقوي قاريك بريك مركب كقوي ما الله وتام سجراش قال اسكديها يا ده غيرش قال ديها سوما أنا قلت جماعة هذا مركب صارنا وحكى لهم مصوها جاجنو
qofka iimaankiisa baa loo siyaadiyaa wax kale maaha quraankii culimadu akhrinayso baa loo sheegaa xadiisku baa lagu baraarujiyaa waxay culimadu masaajida jumlada ku sheegayeen umma tafaariiq ugu sheegnaa sheekh ismaaciil allah u naxariistay baa bari culimo u la hadlaayay ayuu horta culimoy anagu masabkiina ma qaadan ogaada buu yiri waay ganacsatadu waa labo qolo jumlad wax ku keenta iyo qolo tafaariiq layaal waa kuwa bagaaslayaasha labada qolo may wada shaqeeyaan mise way isnacaan bal sheegade ilaa ninkan jumlada wax ku keenaya hadduu qoladii tafaariiqlayaashii waaye ka warrama tijaaradiisu ma soconaysaa idan culimmadu tafaasiirta jumlad bay noogu marayaan xadiiska jumlad bay noogu marayaan fiqiga jumlad bay noogu marayaan jaamacaadka dacwaduna tafaariiqlayaal weeyaanoo xadiiska culimmada ka maqleen ayay maalinba tuulo geeyaan qofka iyaga soo raacana meel kale ma geeyaan bal culimmaday ku soo xidhaan cilmigay jeclaysiiyaan masaajidkay jeclaysiiyaan salaaday jeclaysiiyaan quraankay jeclaysiiyaan wanaagay jeclaysiiyaan dadka wanaagsan bay ku soo xidhaan waxay ka yeelaan mujtamacii uu ku jiray ee dayacnaa ayay intay ka soo dhex saaraan ayaa mujtamac wanaagsan oo iyakuna wanaagga walaalahood la jecel ayay leeyihiin 40 cisho raac 10 cisho raac 20 cisho raac markaad soo noqotana miskiidkaaga ha ka dheeraane xalaqada halkaa kaga taxnow ziyaaraadka jamacaadka la qaad qur-aanka baro culamada masaajidkaagana jeclo oo ikraam idan waxaan u baahannahay maanta waxay macaasidu la badanaysaa imaam ibni qayim aljawsi raximahullah ayaa la yidhi haddaad aragto dad qalaq ku jira qalaq maxaa qalaqa ugu wacan baa la yidhi qalaq waa maxay waa dadka wax walba intay haystaan haddana raaxaysan la dadkii wax walba haysta waxay haysteenna deeqila lacag way haystaan lacagtii ma deeqayso nabad bay haystaan nabadgelyadii kuma filno arsaaqad bay haystaan arsaaqadii baraka ma leh diin iyo dal bay haystaan fiican dalkoogii iyo diintoodii ma aaminsano soomaali waa qaxooti meela joogta waa sii socotaa maxaa ugu wacan baa lagu yidhi qalaqa qalaq wuxuu yidhi qalaqa sababtiisu ma taqaanaan wuxuu yidhi waa macaasida buuli cisyaanku markuu bato nolosha qofka uu ku jiraa ku noqonaysa markaa cidhiidhi buu yidhi lacagtu ma deeqayso dalkiisu ma deeqayo diintiisu ma deeqayso arsaaqadiisu ma deeqayso meheradiisu ma deeqayso ma deeqayso nin saalixiinta ka mid a ayaa isaguna wuxuu yidhi qofka ilaahay qalbigiisa uu nuur aliimaan iyo nuur alyaqiin iyo nuur alcilmi qofka ilaahay qalbiga uu u geliyo ee qalbigiisu caafimaado iyo ka qalbigiisu buko saddex baa lagu gartaa buu yidhi saddex shay kana saddex buu leeyahay ka qalbigu bukana saddex calaamaad lagu gartaa ka qalbigiisu caafimaad qabana saddex calaamaad lagu gartaa qofka qalbigiisu caafimaadka qabo saddex baa lagu gartaa buu yidhi النشاط في العبادة وتعجيل التوبة والقناعة في الرزق qofka qalbigiisu fayow yahay ee freemkiisu uu adag yahay saddexdaa sifaa lagu gartaa toobaddu u degdegaa cibaadada ilaahay baa u dhib yaraataa arsaaqadana inta ilaahay uu siiyey ayuu ku qancaa qalaq male qalbigiisu qalaqii qalbiga male qalbigiisiiba xasilay allah qalbiga noo xasiliyo nashaatu fi lcibaada cibaadadaa u dhib yaraan salaadaa u dhib yaraan qur-aan akhriskaa u dhib yaraan khayrka inuu ka shaqeeyaa u dhib yaraan inuu diinta bartaa u dhib yaraan inuu ummadda u nasteexayaa u dhib yaraan salaatu duxaada u dhib yaraan salaatu leylka u dhib yaraan meesha fiican baa inuu jecla meesha fiican ee khayrka lagu hayo inuu tago ayuu jeclaan الرزق القناعة في الرزق يقول أرزاقنا الحمد لله وحبيك ما مغنى بوليا وكقلبك سعافمات كقبو الله ينسيه نين ولو صدح ذا خصله هذا اللي ده هاي قلبك أقوى عافمات قبائل إلهي وقوم بهدنك هذا صدح ذا سفة أنا اللي هاي وصدح ذا صوص عتا عن شيء دون اللي ده هاينا سادس كل علاج اللي هاي بالغرب عادقة
saddexdee qofka qalbigiisu buko saddexba waa saddexda cagsigeeda alkasalu fi lcibaada buu yidhi cibaadadaa ku noqonaysa dhagax salaadaa ku adkaan qur-aan akhriskaa ku adkaan fadhigii miskiidkaa ku adkaan ictikaafkaa ku adkaan diinta barashadeedaa ku adkaan diin inuu ka shaqeeyaa ku adkaan culays aabbii hooye inuu ixsaan u sameeyaa ku adkaan qaraabada inuu xiriiriyaa ku adkaan hadduu dhaqaalo leeyahay dhaqaalihiisa meeshii ilaahay jeclaa inuu ku bixiyaa yaa ku adkaan leanna xanuunka qalbiga ku jira ayaa waxaasoo dhan kaga dhigaya culays khayrkii ilaahay jeclaayoo dhan ayaa ku noqonaya culays buu ku noqonaya culays iyo taswiifu tawba taswiif sawfa atuubu waan toobad keeni doonaa waliba dhallinyarada aad buu arrintaas ugu badan tahay qaar baan maalin la yar hadloon ka idhi sidan aad u dhaqmaysaa ma fiicne masaajidda ina mariyo gaaso markaa buu da'diina markaan gaadhnaan soo galaynaa sheekh raalli naga aho buu yidhi soo yar ciyaaraynaa buu ka wadaa laakiin ma gaadhaysaa yaa kula ballamay inaad 40 gaadhayso ayaa kuu sheegay 50 sano inaad gaadhi doonto ma ogid maxaad dib u dhiganaysaa toobadaada toobadda waa loo degdegaaye dib looma dhigto iyo alxirs qofka qalbigiisu engegsan yahay waxaa lagu gartaa adduunyada uu sii jeclaadaa maalinba maalinta ka dambaysa walow balaga cumruhu 80 jir hadduu gaadho adduunye halkee adduunye ay iga xigtaa mooyaane halkee khayrku iga xigaaba odhan maayo qofkaas waxaan u baahannahay markaa inaan ka shaqayno sidaan u hagaajin lahayn innaka iyo rabbigeen xidhiidhka inaga dhexeeya kaasaan u baahannahay maanta xidhiidhka hadduu hagaago xiriir kasta oo dadka iyo khalqiga la leenahayna ilaahay baa hagaajin xidhiidhka hadduu kaa xumaado nolosha adduunyada o dhan way kaa xumaatay ugu marka axabu alacmaali ila allahi axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qalla ilaahay agtiisa camal la qabta buu nebigu yidhi waxa ilaahay ugu jecel yahay camalka la joogteeyo walow camalkaasi haba yaraadee khayrka waa la joogteeyaa walow haba yaraado waa la joogteeyaa hoostaana laga bilaabaa korna waa loo socdaa sanadba sanadka ka dambeeyo cibaadadaadu ha biirto salaadaadu ha biirto dacwaddaadu ha biirto barashada diintaadu ha biirto horumarkaa diinta aad ku horumaraysa ha biiro ummad inay horumaraysana waxaa lagu gartaa mujtamacigaa la eegaa siday diinta ugu soo degdegayaan siday masaajidda u dhisanayaan siday madaarista u dhisanayaan annagu adiga sheekh mustafa ku taageernaa buu yidhi waad fiican tahay baan ku yidhi laakiin taageerada culimmadu sidan maaha baan ku yidhi wacdiga waxaa loo jeedinayaa ee culimmadu la dhawaaqaysaa waxa weeyaan waa isbeddel in la keeno in meeshan xun laga kaco in dafrada la iska daayo in mukhadaraadka la iska daayo in masaajidda la galo waxa la sheegayo inuu noloshaada wax ka bedela baa loo dadaalayaa maanta idan naseexa laynooga baahan yahay kulligeen inaan ummadda u naseexayno haddaad daalimka aragtid gacantaa la qabtaa qofka daalimka marka allah inagu anfaco dee inaan kulligeen shaqada diinta ka wada shaqayno ma niyooteen insha allah dhahada yaa niyooday bal gacantaa taago allahu akbar ayib masaajidda waa laynagu iman doonaa ijtimaacii hargeysana waa sebtembar 12-keega sanadkan jamaacado badan baa rabnaa caalamka inaan u dirnee bal soo diyaar garooba insha allah dhahada iyar jabuuti baa niiga warramay maalin dhaweyto bisha iminkaan nila hadlaayo dhexdeeda malaha 17 waddan oo waddanada fogfog ah ayaa jamaaca loo diray waddanadii la odhan jiray francophonie waddanadan afrikada ku taalee isticmaarka faransiisku guumaysan jiray
luqadii af faransiiska ahayd ee reer jabuuti ay isticmaalka kala hadheen intay iyagoo ducaada oo luqadii ku hadlaya dhaqaaqeen bay ku baxeen waddannada afrikada maali bay ku baxeen malawi bay ku baxeen burkina faso ku maqan yihiin madagaskar bay ku maqan yihiin south africa ku maqan yihiin guinea conakry bay ku maqan yihiin ivory coast bay ku maqan yihiin cameroon bay ku maqan yihiin waxay ku maqan yihiin maaragtaan uganda ku maqan yihiin kenya dhowr jamaaca ku maqan zambia 2 jamaaca ku maqan maraykan 1 jamaaca ku maqan jamaacadna imika Addis Ababa bay joogtaayo waxay ku socotaa Scandinavia jamaacana viisihii UK bay xareysato Ingiriis ay ku socotaa waa Djibouti oo dadka ku nool 1 milyan ay yihiin inaguna Somaliland 5 milyan baa tihiin harim zaatihiin 4 milyan waxa la rabaa markay Djibouti 50 jamaaca ay dirto inay Hargeysa 200 jamaaca dirta la inaga fadhiya إن شاء الله هذا واللي بجماعة هذا أفريقيا مركي تجان أي كسر نقدان مدغشقر وادوة الجماعات الدرنا كسر نقطي لما بقول وقفة قعدت هذا كسر إسلام تيجي وارد الرياض دي شيخ سحق بكب بحدي أردو تقول كسر إسلامية وارعبد الله مين هذا شيء يا تدكي فرنسيسكو إنك قاضي بربري يلا قاضي ما ركتاني يزيل عيه جيبوتي يلا قري بقول سنة كهر ده الشودي ده الشيء أي دلنا جرنيش كي صدحات بالله تجي ودين إسلام وحبك جرني سعود كلا سعونا يوحب الله وصو أركان لبعتن أرضي بوشخ اسماعيل الله ونحرسين تون ولا أيو كسوك حيس مدغشقر وهكذا مركز مدرسة جوني الله فري هل كاس القرآن كيف كقارو يبدأ ما ينام لبعتن كاس الله ربعتهم السنة كده بيكون علماء وده كين لو علي